waxa iga soo wacday hooyo markaan ka soo galay xuduudda dalkaasi Mexico anoo joogo gobolkaasi California ayay soo wacday ayada gabar baa soo wacay si degdega ama haleela ama dhaqsa ayaan ticket u goostay marka maalintii arbacadaan goostay waxay ahayd maalintii khamiista inaan soo kaco diyaaradii baa 12kii iyo xoogaa markay ahayd iga soo tagtay hadii la gudmaayo diyaaradii markay iga soo tagtay walaalayaal barakallahu fiikum diyaaradii ma noqon 12kii duhurnimo ayay iga tagtay laakiin 10:30 PM habeenkii baan ka dhigtay inaan soo baxo habeenkii oo dhan bay la soo guureynaysay 9:30 maalintii jimcaha ayaan halkan soo galay magaalada Columbus gobolka Adelaide gudmaayo WhatsApp ka nambaradii faraha badnaa oo soo wacayay nambaro fara badan oo soo wacay awgood waxa dhacday barakallahu fiikum hooyo nambarkeeda ayaa ka qarsoomay iguma soo celin xalayto ayaan marka wacay markay social media hooyo ay ku jirtay 2 saac ka hor baan wacay sababta aan wacayna waxay inaan u imaado markaan arkay wiilkii oo la aasay hooyana waxaan rabay inaan la wadaago barnaamij ah oo aan leeyahay yaanan la aasin wiilka la aasin sababtoo ah hadii la qashay wiilka waxaan xaq u leenahay in la baaritaan la sameeyo marka waxa soo dhan waa khalad dhacay wiilka in la aasay marka anagu cid gooniyo ma isma eedeynayna inaan is eedeynana waa khalad culimadu waa fiican yihiin jaaliyadu waa fiican tahay dumarku waa fiican yihiin hooyooyinku waa fiican yihiin kulligeen waa fiicannahay Soomaali waa fiican tahay kaliya waxa way maanta see xeega loo xigtaa ilkan u nabad galaan see hooyo loogu gargaara marka qof kasta oo Soomaaliyeed oo damiir leh waxaan ka codsanayaa horta hooyo in la soo qaboojiyo oo ayada waxaad u soo diri kartaan aad toos u soo dirtaan numberka halkaas ku qoran waxa iska leh Shaamay Cabdi oo gabadhaas Soomaaliyeed oo dariskeeda oo ilintu ka dhamaatay gabdhihii shalay wax ka aasay hooyooyinka ilmeynayay waa kuwana hooyooyinka ilmeynayay waa kuwana hooyooyinka ilmeynayay oo Soomaaliyeed oo ilaa hadda kaligood ah hadii ay kudmo gurigii aan kaligood ugu imid hadii ay kudmaayo laakiin ilaa 100,000 oo qof oo Soomaaliyeed ayaa joogta magaalada Mareykanna waxa joogta ilaa dad ku dhow 1 milyan oo qof Europe waa joogan Australia waa joogan Soomaali waa la joogaa Soomaali oo dhan hooyo way kula jirtaa laakiin inaga Soomaali waxba inaga khaldan waxba inaga dayacan waana inaan isa saxno